waxaa sharaf noo ah iyo karaamo noo ah inaan ku faraxsanahay mid waajibaadka Ilaahayna saaray iyo midka aan u dhaaranay oo dalkeena ah intaba waa ku faraxsanahay bisha barakaysan ee Ramadaan waa waqti cibaado samir iyo naxariis laakiin geesiyaasha ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa bil ay isugu kulmaan laba waajib oo waaweyn waajibaadka Alle iyo difaaca dalka iyagoo sooman qalbiyadooduna ku xiran yahay cibaadada ayay haddana u taagan yihiin ilaalinta amniga iyo badbaadada shacabka Soomaaliyeed halkaas ayay ka bilaabataa sheekada maalinta halyeeyga anoo ah Abdi Maxamed Daar oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo joogo jiida hore oo dagaalka waxaan bilaaban doonaa jadwalkeeni oo waajibaadkii Alle na saaray iyo midkii qarankeena aan u dhaaranay maalin ka mid ah maalmaha Ramadaanka ee furimaha dagaalka xilligan oo kale inta badan dadka way hurdaan ama ugu yaraan waxay ku sugan yihiin goob ay ku dareemayaan nasiino laakiin halkan waa mid ka duwan Allahu akbar Allahu akbar nolosha askariga kama bilaabato dhawaaqa rasaasta ama dhaqaaqa howlgalka waxay ka bilaabataa cibaado salaada subax duco iyo aqrinta quraanka kariimka bismillaahir rahmaanir rahiim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير qof kasta oo kamid ah askarta wuxuu qaadanayaa daqiiqado uu qalbigiisa Alle ku xiro isagoo xoojinaya iimaankiisa iyo sahayda uu ku wajihi lahaa maalinta bilowga ah اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يغفر لي على كرامك اللهم صل على سيدنا marka cibaadadu dhamaato askartu waxay u diyaar garoobayaan waajibaadkooda labaad waajibaadkooda difaaca dalka iyagoo qalbiga ku haya quraanka iyo duco ayuu askarigu qaadanayaa hubkiisa una dhaqaaqayaa furimaha difaaca halkaas oo ay ka bilaabato shaqada ugu weyn ilaalinta dalka dadka iyo diinta oo ayaduna ah cibaado kale oo weyn cibaadada jihaadka ee difaaca diinta nafta maalka iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed cibaado kale oo ayadana howlgal ah aan ku sii jirna waxaa sharaf noo ah iyo karaamo noo ah inaan ku faraxsanahay mid waajibaadka Ilaahayna saaray iyo midka aan u dhaaranay oo dalkeena ah intaba waa ku faraxsanahay shacabka naga dambeeyo oo aan u dhaaranayn ayagana waxaan leenahay guul ku saaxada hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ammaanayaa oo bogaadinayaa ciidamada qaranka ee dhaxanta damacda iyo dhufaysyada ugu jira difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xilligan Ramadaan ee dadku ay cibaadeysanayaan waxaan u rajaynayaa guulo isdaba joog ah Ilaahay idankiisa maantay waxaan muujiseen ciidankeenu muujinayaan jihaadkii rasmiga ah iyaga ku jira kalimadii xaq ah iyaga u taagan qadiyadii cadaaladda ah iyaga difaaca oo u taagan waxaan ka qaadanay al-shabaab dhul kaliya ma ahan diintiina waa ka qaadanay diintii waa ka xoreynay diintii waa ka soo ceshanay dadka ay ku tahdiidi jireen ay dhihi jireen jannadii Abu Ubayda idin haya Ali Dheer haya laakiin jannada iyaga uma rabaan kuwaas ciidamada qaranku ma ahan oo kaliya kuwa dagaal ku jira waxay sidoo kale qayb ka yihiin nolosha bulshada marka ay tuulo ama magaalo gaaraan mararka qaar waxa ugu horeeya ay la kulmaan waa bulshada oo ay waqti la qaataan doola cadaynta caruurtu waa fariin ka tarjumaysa waxa ay askartu u dagaalamayaan oo ah nabadda waxaan soo aadnay maanta magaalka maadaama magaaladii ay furan tahay oo magaalo barwaaqo iska tahay waa soo adeegnay adeeg baan u soo doonanay intaan adeegan ku jirnay waxaan la kulannay odayaal maartay oo mise dadkii nugeelka ah oo tabaalaysan
intii anaga aan gacanteena gaari kartaan soo gaarsinay وكان قاعد يهبل سمد لك قبل ساعة الإجابة إلهي نسي اللهم صل على سيدنا بلد كنا ضاي اسم بلد آمين بلد كان بلد آمين وبلد آمين وهرتو والأبية لكن توجين رفاستي معي بلد كبغر واي صح ها وما حدثن تاعي وما حدثن تاعي بقول خيو بقول دولة أشياء الله هذين كده مدحين كر قول جد الله هذين سي إلهي ذن كيس الله أكبر الله أكبر waxaan joognaa casarkii joognaa waxaan ku jirnaa masaajidka weyn ee mubaarak anaga iyo asaabteena dhamaan waxaan diyaar u nahay waajibaadka alle inaan gudano midka qaran iyo midka oo Ilaahayna saaray dhamaanteen intaasaan u diyaarsanahay hadii Ilaahay yiraahdo waqtigu wuu isgurayaa askariguna wuxuu ku jiraa cibaado aan kala joogsi lahayn hor istaagga alle jihaad iyo caawinta bulshada cibaado iyo difaac waa laba waajib oo isku sidkan xilliyada salaadaha askarigu wuxuu u istaagaa alle meel kasta oo uu joogo haddii ay noqoto geed hoostiis ama furin dagaal waxaan karsanaynaa afurkeeni oo aan ku afuri lahayn anagoo joogno furunto gaar ahaan mubaarak marka waa jeclaan lahayn inaan xaafadeena aan ku afurno laakiin waajibaadkii aan u arnay dartiis waxaan ku afuraynaa furunta hore waana ku faraxsanahay inaan ku afurno furunta hore shacabkeeni waxaan leenahay guul ku noolaada qoraxdu waxay ku sii socotaa godkeeda الله أكبر askartuna waxay bilaabayaan diyaarinta afurka waxay ku afurayaan biyo timir iyo cunto fudud laakiin leh macno weyn iyo dhaqan gaar ah afur wanaagsan dhamaanteena Ilaahay ajarkiisana siiyo waajibaadkii Ilaahayna saaray aan maanta aan noo soo bilaabay halay 10 saac oo hadda noo soo dhamaaday waa taas waa tii alla nagu lahaay waay midaada kale waxay bilaabanaysaa hadana waa waajibaadkii qaranka oo habeenimo ayaan galaynaa nolosha askariga Soomaaliyeed ma aha oo kaliya dagaal waa isku dhaf cibaado samir iyo difaac qaran Ramadaan furinta dagaalka iyo qalbi ku xiran alle sheekadan waa qayb yar oo kamid ah kumanaan sheeko oo ay la gaar yihiin geesiyaasha qaranka ee waqtigooda iyo naftooda u huray sidii muwaadinka Soomaaliyeed oo ugu noolaan lahaa sharaf u hurdi lahaa isagoo aan qabin wax cabsi ah isla markaana ku kalsoon inay jiraan haliyeeyo u dhaartay difaaca diinta dalka iyo dadka